degdeg Somaliland waxay wajahaysaa saansaan colaadeed. Dhawaaqa ay dhagaha shacabku maqlayaan waa mid halis gelin karta nabadii 31 sano Somaliland ku soo caanamaashay. Madaxweynaha muddaxileedkiisu dhow yahay Muuse Biixi Cabdi waxa uu muuqdaa inuu ku foogan yahay sidii uu bisha December isagoo aan fal ama indhasarcaad midnaba isticmaalin November uga soo horreysiin lahaa. Diidmada mucaaradka ahaa inaanay la kulmaynin madaxweyne Biixi iyo xisbigiisa kulmiye kadib waxa uu furay albaab cusub. Madaxweynaha ayaa qasrigiisa ku qaabilay siyaasiyiinta ururada ku dhawaaqay waxaana magaalooyinka Burco, Ceerigaab iyo Oodweyne, Hargeysa iyo Berbera ka soo yeedhay hanjabaad loo dhan yahay. Mujaahidiintii ka tirsanaa SNM iyo taageerayaasha xisbiga wadani oo Muuse Biixi Cabdi ku tilmaamaya dagaaloogay waxay uga hanjabayaan haddii uu doorashada madaxtooyada qaban waayo inay dagaal kala hortagi doonaan. meel la taabto oo madaxa ka sareysa ma jirto. waxaan ku leeyahay madaxweyne dalka nabadiisa adigana dambi kugu jirta anagana damba noogu jirta. waxaan ku leeyahay dalkan waa loo soo baayay, waa loo soo jabay, waa loo soo halaagmay. shisheeyaa laga qaaday, rag badan baa ku dhintay, rag baa xabaalaha ku jira, agoomayaashii aabbayaashood ku dhinteen ayaa fiiga laga bixin. haddaa dalka nabadiisa aad qaban weydaan nabadda qaban weydana cidda caana ka daadanayaan Muusow adaa yaqaana. haddaad Muusow aad maanta tidhi sida aan doono ayaan yeelayaa noqon mayso sidaa doonto adigu ee waa sidii shacabka reer Somaliland ay yeelaan. SNM waxaan ugu baaqayaa gobolada meel kastoo ka joogtaan heegan buuxa gala dalka waynu badbaadinaynaa ala cilmi waa halkiisii dagaalkuna waa halkiisii waana naqaanaa dagaalka marka waxa weeye diyaar garooba soo rara qoriyihiinni annaguna waan soo rarnaa mujaahidiintu waan diyaar garaynayaa eeg qabiil horta arrintu maaha laakiin gabaarida la iska qabanayaa waa rajiim xumaaday weeye dadkoo dhan baynu badbaadinaa hore loo badbaadino uga badbaaday rajiimkiisii aad barreen imakana rajiimkeenu ka badbaadinaynaa dalka iyo dadkiyo diintaba midna uma wanaagsana marka waxa weeye diyaar garooba soo rara qoriyihiinni annaguna waan soo rarnaa mujaahidiintu waan diyaar garaynayaa marka aad dagaal u diyaar garowdaan nabad la helaa. Biixi ayaa jawaab uga dhigay tallaabo aan habboonayn oo suuragal ka dhigi karta inay xaaladdu ka sii xumaato halkay maanta joogto. waxaanu xabsiga dhigay Mujaahid Cabdi Ibraahim Keetane. sidoo kale Mujaahidka Qallaaf ayaa isaguna xalay sheegay inuu 800 oo nin uu hogaaminayo ku soo wajahan yihiin caasimadda Hargeysa isagoo xilligan ku sugan goob u dhaxaysa Burco iyo Hargeysa. isagoo Mujaahidku sheegay in ujeedada ay u socdaan ay tahay inuu dagaal kala hortago xukuumadda madaxweyne Biixi. dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan nabadgelyo. madaxweynihii waddanka haystay ayaa doonaya inuu nabadgelyo sameeyo oo doorashadii uu la wareego. waxaan leenahay doorashada qabo waxaan leenahay doorashada xilligeeda ku qabo. waxaan leenahay wasaarayaashii madaxweynaha inaad siiyeysa magaalada dhexdeeda rag baa ku dhintay oo mid walba 100 qof ayaa ku maqan. waxaan ku shan madaxweyne ka soo horeeyay saddex madaxweyne midna muu taaban. waa kuwii shalay lagula bariyay kacalaystay weeyaan oo rag baa ku dhintay. Tancaadi iyo Bakad baa ku dhintay Koonfur. waxaan ku raggii way joogaan adigu markii beertaada la ilaalin maayo anoo halka deysan oo loogu tagayaa. haddii aad doorashada qaban weydo waxaan ku weli wixii halkaa ka soo baxay isaga ayaa ka mas-uula. hadda waxaanu ku sugannahay Hargeysa madaxdeeda. Hargeysaan kusii jeednaa 800 baan nahay. ujeedada Hargeysa ku soconaa isbedel doon baanu nahay inaanu rajiimkaa ka qabanno dadka ayaanu u soconnaa. inaanu rajiimkaa ka qabanno dadka oo dalka naga burburin baanu doonaynaa. anaa hogaaminaya anuu Mujaahid Qallaaf. dhankiisa musharaxa Cabdiraxmaan Ciro oo garab ka helaya mujaahidiinta beeshiisa waxa uu wadaa abaabul xoogan oo uu ka wado magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ka kooban tahay. banaanbaxyo uu xisbigiisu hogaaminayo ayuu wadaa. dhalinyarada waxa uu ku dhiirinayaa inay shafka u dhigtaan xabadda. xaalkii Hargeysa halkaas uu maraya.